munaasabadani ballaaran oo ahayd mid ka qabsantay xarunta jaamacada Unity ee magaalada Burco ay ahayd munaasabad shahaadooyin kala duwan lagu guddoonsiinayay 200 arday oo kala duwan oo ka faa'iideystay tababar gaagaaban oo bixinayay Maxamed Cumar Cismaan oo ah khabiir ku takhasusay horumarinta aadamaha isla markaasina kala ahaa xirfadaha fagaara ka hadalka iyo sidoo kale hogaaminta oo ay qabanaysay jaamacada Unity ayaa waxa ugu horeeyay munaasabadaas ay ka soo qayb galeen ardaydani oo aad u tiro badan ugu horeeyay oo faahfaahin ka bixiyay Khadir Xuseen Maxamed oo ah madaxweynaha jaamacada Unity gobolka Tababar iyo sidoo kale Maxamed Cumar Cismaan oo ah khabiir ku takhasusay horumarinta aadamaha sidoo kale tana ah agaasimaha macadka horumarinta aadamaha ee saldhigiisu yahay magaalada Boorama iyo sidoo kale agaasimka xirfadaha gaagaaban ee jaamacada Unity maanta waxaynu halkan isku nimeynayno siino tababar jaamacada ka socday oo 3 cisho socday oo noogu martiyaha Maxamed Cumar Cismaan tababarihii nololeed ayaamahanba markaa ka bixinayay tababar ka bixinayay jaamacada Unity xiritaankiisa been maanta joognaa way maanta markaa waxa ka qalin jibinaya arday 150 arday 150 ka arday waxay baranayeen laba xirfadood bay baranayeen leadership iyo public speaking bay baranayeen waxay markaa dhamaantoodba halkan iskugu yimaadeen maanta in la siiyo shahaadadii la siiyo shahaadadaasi markaa waa shahaado ay iska kaashadeen ama shahaado caalami ah iska kaashadeen maxadka caanka la yiraahdo Success Institute for Human Development ee Unity University waxaan markaa dhamaan ardayda halkan joogtaan aad ugu hambalyeynaya waan leeyahay hambaliyo dadaal fiican ba sameeyeen aad iyo aad baa u dadaasheen inta ay in ka badan waan idinka sugaynay waana insha Allah hadii la yiraahdo waxaan idin leenahay sii wada dadaalka ha joojinna insha Allah hadii la yiraahdo waxaan idin ballan qaadaynaa dhamaantiinba inta halkan fadhida inaanu intan iyo in ka badanba aanu idin keeni doono tababaro fara badan keeni doonto dad badan soo casuumi doonto waxaan leeyahay sanadkan waxaan qaadanaynaa scholarship ka duwan scholarshipkii hore scholarshipkaasi waxa uu tilmaamayaa ama uu sheegayaa in ardayda dhamaysatay dugsiyada sare sanadkan dhamaysatay ay u tartami doonto scholarshipka imtixaan ba laga qaadi doonaa ardayday markaa ku guuleysan doonta registrationka jaamacadda wuxuu furmi doonaa kowda bisha furmaya waxaan leeyahay markaa ardayda dhamaysatay secondaryada dhamaysatay waxaan leeyahay kaalay jaamacadda istiwaangeliya 100 arday oo horeeya ayaa heli doona fursada heli doona runtii xaflad weyn baa halkan ka dhacday munaasabadii xiritaanka iyo gunaanadka tababar dhowr maalmood socday oo iska kaashadeen macadka horumarinta aadamaha ee la yiraahdo Success Institute for Human Development iyo jaamacadda Unity University faraceega Burco wuxuu ahaa tababar laba dhinac ardayda ka taageerayay oo laba xirfadood ardayda lagu tababarayay waxa lagu tababarayay xirfadda dadka hor hadalka ama fagaara ka hadalka oo ardayda caqabado badan ka haystaan markay waxbarashada ku jiraan iyo xirfadda hogaaminta oo ardaygu hadii isagoo xilliyada hore waxbarashada ku jira la siiyo aad u anfacaysa runtii tababar ay ka faa'iideysteen bay ahayd arday aan ku qiyaasnay 200 ku dhawaad baa tababarka ka faa'iideysatay maantana shahaadooyinkii baa la siiyay waxaan qabaa in tababarada saa u kooban oo kale ardayda dugsiyada sare ka baxaysa ama jaamacadaha qaybahooda hore ku jirtay inay muhiim aad u yihiin oo aanay ka maarsamayn waa xirfado ardaygu ka caawinaya inuu waxbarashadiisa si xirfad iyo deganaansho leh u guto waan u mahadnaqayaa dhammaan ciddii suura gelisay jaamacadda Unity University oo ay naga dhaxayso wada shaqayn ballaaranina waan u mahadnaqayaa inay hirgelinta tababarkan qayb lixaad la kala hayay ahaantii qaatay laba kooras oo aad u qurux badan oo raqaaya badan oo ah leadership ama hoggaanka iyo waxa la yiraahdo fagaara ka hadalka ama public speaking sida mujtamac loola hadlo waxaan u malaynayaa oo aan filayaa inay dhammaan ardayda gobolku dhamaantood gaar ahaan degmada Burco ka faa'iideysteen fursadda aadka iyo aadka u quruxda badan dhammaan jaamacadda Unity waxay idin ballan qaadaysaa aan horena idinku soo waday tababarada gaagaaban oo aad iyo aad u ballaaran oo imika ay dhigtaan 553 arday ilaahay ayaa mahadlay ugu horeyn marka xigta waxaan mahad celinayaa dhammaan maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Unity University iyo tababaraha noo qabtay xirfadda sidaan u horumarinayna awoodaha hadalka iyaga iyo sidoo kale maamulka iyo maareynta runtii waxa weeye waa wax naga maqnaa runtii markan aan arday ahaan nahay
anigoo kamid ah ardayda ka faa'iideysatay kooraska labada cisho soconayay alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waa aniga kamarada hor taagan ka hadlaya maan hadli jiray dhidid bay geeyay jiray ruuxaantii oo wax ilaahay loogu mahadnaqo gabagabadii waxa halkaasi shahaadooyinka lagu guddoonsiiyay ardaydaasi kala duwan ee dhamaysatay tababaradani muhiimka kuwaas oo ah tababaro ku cusub guud ahaanba gobolka Togdheer sidoo kale tan muhiimad gooni ugu fadhiya dhalinyarada in lagu tababaro xirfadaha fagaara ka hadalka iyo sidoo kale hogaaminta وخالد بكيلة فقانا رقو حرطة ستار تي في برعو